ninkani ayaa ahaa kalluumaysto sidoo kalena waxa uu soo qabsaday kalluun aad u qaali ah balse waxa uu sameeyey King 252 kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janalka King 252 ku soo dhawaada gacmo furan haddaad iminka ugu soo biirtay fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad ula socoto warbixinada dambe aan soo dhigna haddii ilaahay raalli ka noqdo haddii aad ka mid tahayna asxaabtii hore inoola joogay ee subscribe hore u yidhi waad ku mahadsanta subscribe-kaaga maanta warbixinta aan idii hayo waa warbixin mucjiso iyo la yaab leh taa oo inteeda badan xiisaha ay xambaarsan tahay adigu markaad iska soo qaadid ay kula naqanayso arrin la yaab leh sheekadan xiisaha leh oo sida weyn ugu faafay baraha bulshada dalka Nigeria iyo adduunka oo dhan ayaa ah nin u dhashay dalka Nigeria ayaa sameeyay arrin lagu maadaysto kadib markii uu iska lumiyay fursad uu ku noqon karay maalqabeen ka mid ah maalqabeennada ku nool dalkaasi Nigeria kadib markii uu soo qabtay kalluun aad qaali u ahaa kaasoo lagu magacaabo blue marlin fish ninkani ayaa ahaa kalluumaysto sidoo kalena waxa uu soo qabsaday kalluun aad u qaali ah balse waxa uu sameeyey ninkan oo ahaa kalluumaysato ayaa soo dabtay kalluunka iyadoo aqoon dari daraaddeed uu isagu iyo dadkii deegaanka ka agdhawaa ay cuneen kalluunkaasi laakiinse sheekada xiisaha leh ayaa ah in kalluunkaasi nuskiisa kiilo in lagu iibinayay lacag gaaraysa $31,000 Mareykanka ah iyadoona celcelis ahaan kalluunkaasi uu ku fadhiyay adduun lacageed oo gaaraya $2.6 milyan oo qiyaas ahaanna lacagta dalkaasi ay u dhiganto $1.2 bilyan oo lacagta dalka Nigeria laga isticmaalo ah ninkani ayaa la sheegay in uu maalmo yar ka hor kalluunka buluuga ah ee la yiraahdo blue marlin uu ka qabtay tuulo yar oo lagu magacaabo Andoni balse arrinka la yaabka lahaa ayaa ahaa in uu ogaaday wax yar uun kadib markii ay ku baashaaleen kalluunkaasi isaga iyo asxaabtiisa iyo familkiisa in uu ahaa kalluun aad qaali u ahaa taa ayaa dadka badankeeda waxay ku micneeyeen in ay u geysay aqoon dari waad dareemi karaysaa kalluun intaa la eg weyninkiisa nuskiisa kiilana la iibinayo $31,000 in uu ku fadhiyo lacag aad u fara badan qiyaastii waxaa la sheegay lacagtaasi uu iska lumiyey ee ah $2.6 milyan in ay ku noolaan kareen isaga iyo jiil fara badan kalluunkani ayaa waxa uu ka mid yahay kalluunada aadka looga baadigooba daafaha caalamka kalluunkani miisaankiisa waxaa lagu qiyaasay in uu ahaa 820 kiilo halka dhererkiisana lagu sheegay 5 mitir in uu ahaa kalluunkani markii uu soo qabtay ayuu sawirro isaga qaaday isaga iyo asxaabtiisa isagoo markaa ugu dabaaldegaya in uu soo qabsaday kalluun ka mid ah kalluunada ugu waaweyn ee badda balse muusan ogeynin qiimaha uu ku fadhiyo kalluunkaasi sawirkaasi ayaa waxa uu ku faafay baraha bulshada isla markaana waxaa looga soo jawaab celiyey in uu ninkaasi iska lumiyey lacago aad u fara badan oo hore aan u soo sheegnay haddaba talow dalka Soomaaliya waxaa ka jira kalluumaysato fara badan waxayna soo dabtaan ay soo qabtaan kalluumo noocyo kala duwana talow ma laga yaabaa qof ka mid ah in uu iska qasaariyey fursadaasi uu ku naqan karay maalqabeenka warbixintan waa warbixin iska gaaban balse xiisaheeda iyo amakaageeda ay leedahay bal dhegaystow adigu haddaad ka mid ahaan lahayd qofka iska qasaariyey kalluunkaasi maxay kula naqan lahayd balse waxaad leedahay uun nasiibka ayaa ii saamixi waaye hore uga socda sidaa iyo nabadgelyo